السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرين جنال كمركز السود وهذا أرمها سياسة ما أنت وينو كنا صنينا لين عرمها برشادة إنه إجنو شكلًا سوسعته وشكل لياب له سنة كيورا يدحدي وجعل كيس دحجيسوت كها مسيركو كذا شيء دلكو كحجي فكشدو كحجتي سوق وشدو كحجتي محكمة ذيت كحجتي دم باللجوه لي كدبنا الله حكومة شكلًا وشكو دلكو سليسن يو لبق بدوت oo hal wiil wada jeclaa mid ka midana gabdhihii la dilay oo gabar kale ay dishay kadibna wadankay ka baxsatay la soo qabtay sheekadan waxay dhacday bishii May ee shanaad sanadkii 2022 waxa dilku uu ka dhacay magaalada Austin ee gobolka Texas sheekadan waxay u dhaxaysaa gabar la yiraahdo Anna Maria Wilson oo 25 jir ahayd oo ah gabadha la dilay gabadhaas waxa ahayd xidigad yar oo soo baxaysa oo dhinaca baaskiilada tartanka baaskiilada si aad ah ugu soo caanbaxaysa isla markaana mustaqbalka lahayd iyo sidoo kale gabar kale oo iyaduna ahayd dadka bara yoga waxa la yiraahdaa tababarkan inta badan la iska qalluuciyo oo India ka soo bilowday ayay macallimad dadka bara ayay ahayd ayadana Caitlin Armstrong ayaa la yiraahdaa waa gabadha wax dishay waa 35 jir ninka markaa labada gabdhood ba xiriirka la lahaa waxa la yiraahdaa Colin Strickland isaguna waa 37 jir isaguna dhinaca baaskiilada tartanka ayuu ku fiicnaa marka gabadhan wax dilaysa ayay markii hore saaxiib ahaayeen gabadhan kale ayay isbarteen oo la dilay markaas kadib tii hore oo xiriirka la lahaa ayaa maseertay sheekadan marka dilka ah habeenka ay wax dhacayaan ayaa waxa casho isla aaday gabadha la dilayo iyo ninkan sidoo kale labada gabdhood xiriirka la lahaa gabadha la dilayo Anna Maria Wilson oo Mo Wilson loo yaqaan iyo Colin Strickland kadib waa soo wada casheeyeen kadibna guri saaxiibteed oo ay joogtay toddobaadka ayuu keenay gabadhan marka bishii May 11keedii shanaad ee sanadkii 2022 ayaa gabadha wax dilaysa oo la yiraahdo Caitlin Armstrong waxa ay timid gurigii ay gabadhaasi joogtay kadibna halkaasi ayay ku dishay waxa la leeyahay 3 ilaa 4 xabadood ayay ku dhufatay laba madaxa ah hal wadnaha iyo mid gacanta uga tiilay oo loo maleynayay in iska difaacisay marka ay ku dhufanaysay dilku marka waxa uu dhacay 11kii bishii May ee sanadkii 2022 waxyaabaha marka lala xiriiriyay gabadhan waxa kamid ah in gaarikeeda oo nooca jiibka oo madow ay soo qabatay kamera dariska ah isagoo gaarigeedu ka sii dhaqaaqayo guriga gabadhan lagu dilay isla markaana risaasta xitaa markay dhacaysay iyo qaylada ama sawaxanka kaamerooyinka ayaa qabtay oo risaasta xitaa waa la tarin karay inta risaas oo dhacday qayladana waa la maqlay gabadhan markii dilka ay geysatay kadib marka uu dil dhaco waxa laga shakiyaa ayaa u dhawaa qofkaasi la dilay marka waxay kamid ahayd dadkii ugu horeeyay ee su'aalaha la weydiiyay oo boolisku ay u yeereen markii dilku uu dhacay kadib markii su'aalaha la weydiiyay boolisku wali wax cadeyna ma hayaan gabadhan way iska fasaxeen markaas kadib ay waxay bilowday marka gabadhan wax dishay oo Caitlin Armstrong la yiraahdo sidii ay wadanka Mareykanka ay uga baxsan lahayd tilaabooyinkan ayay martay marka laba maalin kadib markii dilku uu dhacay oo bishii May 13keedii sanadkii 2022 horta gaarigeedii ayay iibisay gaarigii kaamaradu ay qabatay oo meesha lagu arkay oo jiibka ahaa ayay iibisay May 14keedii maalin kadib markii gaariga ay iibisayna waxaa lagu arkay airportka la yiraahdo LaGuardia oo ku yaala New York iyadoo airportkaasi ka dhoofaysa sidoo kalena 18kii bishii May waa 4 maalin kadib markii airportka LaGuardia lagu arkay ayaa haddana waxaa lagu arkay airportka Newark ee New Jersey ku yaala oo isaguna New York ba oo ku yaala ayaa mar kale lagu arkay airportkaasi markaasi ayaa u dambeysay airportkaasi lagu arkay 43 maalmood ayaa ciidamada Marshallska ay raadinayeen marka 43 maalmood kadib ayaa waxa lagu arkay magaalo yar oo meel fog ku taala wadanka Costa Rica oo bartamaha America oo la yiraahdo Santa Teresa de Combano ayaa laga soo qabtay iyadoo waliba halkaasi ku dhuumaaleysanay laakiin gabadhan inta aysan Mareykanka ka bixin miyay qalliinkan sameysay markii ay ka baxday kadib ayay sameysay lama oga laakiin qalliin ayay isku sameysay si ay muuqaalkeeda u bedesho horta waxay ku safartay baasaboorkeeda maahan maadaama gabadhan boolisku ay baaritaano weydiiyeen oo laga shakisanaa baasaboor gabar walaasheeda ay leedahay ay wadanka uga safartay
oo ay uga baxday marka waa isku ekaayeen kolley sida loo malaynayo marka muuqaalkan sawirkan aad arkaysaan aan iraade waa ka hor inta aysan qalliinka isku samaynin kanna waa markii qalliinka isku samaysay kadib qalliinkeeda waxaa ku baxay $6,350 plastic surgery ayay isku samaysay si ay muuqaalkeeda u bedesho waxyaabaha marka ay bedeshay waxaa ka mid ah sankeeda oo ay qalliin ku samaysay oo ay dhuubtay xiribaheeda ama sidoo kalena sunniyaha oo iyadana lift ay ku samaysay oo kor u qaaday tinteeda oo markii hore noocan ahayd ayay hadda madow ka dhigtay oo ay madoobaysay marka qalliinkaasi ayay isku samaysay si ay markay wadankana ay ka baxsatay markii dambe waa la soo qabtay wadanka Mareykanka ayaa lagu soo celiyay Costa Rica ayaa laga soo helay 43 maalmood kadib markii la keenay kadib marka oo su'aalo la weydiiyay dacwad oogayaasha iyo xeeraliyaha degmada leeyahay Travis County ee gobolka Texas waxa ay u bandhigeen bal inay dambigeeda qirato waxa la yiri dambigeeda qiro xukunkaada waa la qafiifinaya marka hadii ay dambigeeda qiran lahayd waxa la leeyahay xukunkeeda hadda inta lagu xukumay oo sanado badan oo aad arki doontaan namaadka aan ku sheegi doono intaasi waa uu ka yaraan lahaa iyadoo 50 jir ilaa 60 jir ay xabsiga ka soo bixi lahayd hadda waa 35 jir laakiin waa ay diiday in ay dambigeeda qirato intii marka maxkamadeedu waxay bilaabatay 30kii bishii hore ee dhamaatay October marka 19 maalmood ka hor intaysan maxkamadeedu bilaaban ayaa waxay tiri dhakhtar caafimaad ayaan rabaa marka balan ayaa loo qabtay intii dhakhtarka loo sii waday ay isku dayday inay baxsato sawirkan aad arkaysaan waa iyadoo cararayso oo ciidamadii ilaalinayay ay ceyrsanayaan waa la soo qabtay waxa la leeyahay balanta maxkamadda been abuur ayay kala dan lahayd oo intii xabsiga ay ku jirtay sida loo ordo ayay baranayso inay fakata ay rabtay marka waa markii labaad oo isku dayday intii xabsiga ay ku jirtay haddana mar kale inay baxsato marka 30kii bisha ay maxkamadeedu bilaabatay ku dhawaad 20 maalmood ayay socotay waxyaabaha marka dacwad oogayaasha ay ku andacoonayeen waxa kamid ah gabadhan inay dambigan leedahay oo gabadhan ay dishay cadeymaha muhiimka oo la helay videoga horta guriga ay wax ku dishay guriga ka soo horjeeday muuqaaladii uu duubay oo markii qaylada la maqlayay risaasta dhacaysay la maqlayay qori ay lahayd sidoo kale ayaa risaastii dhacday haraadigeedii oo meesha laga helay ayaa waxa la ogaaday in sidoo kalena qori iyadu ay lahayd loo tixraacay oo qorigaas inuu keedi yahay ayaa la ogaaday gaarigeeda oo black jeep ahaa oo meesha ka sii dhaqaaqay oo kaamiradu ay qabatay guriga ay gabadha ku dishay sidoo kalena gaarigeeda GPS iyo telefonkoodana sidoo kale isla meeshaasi ayaa uu ka muuqanayay sida baarayaashu ay xaqiijiyeen DNA-geeda ayaa waxa laga helay baaskiilka gabadha ay dishay ay lahayd oo guriga banaankiisa yiilay sidoo kalena waxa laga helay DNA-ga gabadhan wax dishay sida darteed marka dhamaanba cadeymahaasi waxa ay dacwad oogayaashu ay sheegeen inay ku caddahay in gabadhan ay wax dishay waxa la leeyahay hadii aysan dilgeysan maxay baasaboorkeeda baasabooraan ahayn oo baasaboorka walaasheeda ay wadanka uga safartay maxay qalliinkan isugu samaysay oo muuqaalkeeda ay u bedeshay maxay 43 maalmood ay u dhuumanayso oo wadanka ay uga baxday waxyaabahaas oo idil marka waxay leeyihiin waxay cadeyn ku yihiin gabadhan in dilkan masayr dartii ay u geysatay oo gabadhaasi ninkii iyadoo ay saaxiibka lahayd xataa ninkan dartii ay wax u dishay xiriirka kala dhaxay waxa la yiri mid joogta ma ahayn on and off marna way kala tagayeen marna way isku soo laabanayeen marka gabadhan kale ay uga shakisay inuu xiriir la yeeshay sida darteed waa ay masayrtay gabadha sidaasi ayay ku dishay marka qamiistii hadda la soo dhaafay ayaa xeer beegtidii 2 saacadood iyo bar markii kiiska gacanta loo galiyay inay go'aan ka gaaraan wax ka yar 2 saacadood iyo bar ayay go'aan uga gaareen dambi ayayna ku heleen inay dilkan geysatay jimcihii ayaana marka la xukumay waxaana lagu xukumay 9 sano oo xabsi ah ayaa lagu xukumay gabadha Caitlin Armstrong hadda waa 35 jir 9 sano ayaa lagu xukumay $10,000 oo ganaax inay bixiso markii hore xukunka la filayo dacwad oogayaashu ay soo jeediyeen 5 sano ilaa 9 sano ayuu ahaa laakiin 9 ayaa lagu xukumay marka la xukumayay intay dacwadu socotay gabadhii dhimatay hooyadeeda aabaheed walaalaheed ayaa joogay iyada walaasheeda ayaa sidoo kale maxkamadda la soo istaajiyay marka 20 maalmood ku dhawaad ay maxkamaddu ay socotay ugu dambeyntiina 9 sano ayaa lagu xukumay masayr dartii ayayna gabadhaasi ay u dishay sidoo kale waxaa jirta dacwad kale oo mar kale loo soo istaajin doono maxkamadda oo ah baxsashadii 2 jeer oo isku dayday intay xabsiga ku jirtay iyadana mar kale ayaa maxkamad loo soo istaajin doona waxa laga yaabaa inay xukun kale ay ku mutaysato marka xitaa ninkii xiriirku uu kala lahaa dadkii maxkamadda la soo istaajiyay ayuu ku jiray waxa uu yiri gabadhan dhimatay wax xiriir naga ma dhaxayn dad asxaab ayaan ahayn xitaa fariimo qoraaleed iyo waxyaabo ay ku sheekaysteen ayuu soo bandhigay marka waxa uu yiri gabadhaasi wax xiriir naga ma dhaxayn gabadhan wax dhashayna sidoo kale xiriirkeenu mid joogta ama uusan ahayn marna dad isku imaada ayaan ahayn marna sidoo kale kala taga marka ugu dambeyntii gabadhii masayrka dartii u dishay gabadha kale
xukunkeedii waxa uu noqday 9 sano oo jimcihii lagu xukumay marka xukunkeedu dhacay kadib xitaa waxa la arkayay iyadoo wax jixinjaxa aan muujinaynin oo maxkamadda markii ciidamadu ay kasii wadeen oo xabsiga loo dhaadhicinay marka sheekadaasi ayaan rabay inaan idinla wadaago aad iyo aad u mahadsantihiin intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkan cilmi waro idinla sida iyo nabadgelyo